dowladda qatar ayaa khamiistii la soo dhaafay warqad u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasi oo ay kaga camanayeen in dalka Isutaga Imaaraadka Carabtu uu ku xadgudbay hawadooda. wakiilka joogtada ee qaramada midoobay u fadhiya wadankaasi Qatar Cali Ahmed bin Saif Al Thani ayaa waxa uu sheegay in diyaarad military oo sidee xamuul ay ku soo xadgudubtay hawadooda sida lagu baahiyay wakaalada wararka ee wadankaasi. warqadani oo si toos ah ugu socotay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa lagu qeexay in Imaaraadku ku xadgudbay shuruucda caalamiga ah waxaana ay ka digeen in isudayada noocaasi oo kala ah ay abuuri karaan xaalada xasilooni darro oo ka dhaca gobolka. golaha ammaanka ah ayay ka codsadeen inay qaadaan tallaabo kasta oo lagaga hortagi karo wixii carqalad ku keenaya nabadda iyo xasiloonida caalamka. dowladda Qatar ayaa hore 4 mar cabasho ugu gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasi oo ku aadanayd arrimaha hawadeeda. sanadii aynu ka soo gudubnay ayay ahayd markii dowladaha Isutaga Imaaraadka Carabtu sida Bahrain, Masar, Sacuudiga ay xiriirka diblomaasiyadeed iyo ka ganacsiba u jareen dowladda Qatar iyagoo ku eedeynayay inay gacan siinayeen argagixisada. balse Qatar ayaa dafirtay eedeymahaasi loo soo jeediyay iyadoo arrintaasi ku tilmaamtay inay tahay cunaqabatayn la duldhigay isla markaasina lagu xadgudbayo madax bannaanideeda.